calaamadaha noocaana haddaad ku riyootid oo isku aragtid riyada dhexdeeda adoo lagu tusayo ilaahay idinkiis waxay tusayaan calaamadahan wanaag iyo khayr inaad tanaad noqon doontid oo qani noqon doontid ayayna tilmaamayaan calaamadaha kan maxay yihiin aan isla aragno nala socda idinkoo mahadsan jazaakumullahu khayra inta badan qofka hurda waxyaala ayuu arkaa oo uusan fahmayn macnahooda ama laga yaabo agtiisa inay raqiis ay yihiin laakiin ogow arrimahaas ha sahlan khayr inay ku yihiin baa laga yaabaa insha allahu tacaala waa khayr kuu soo socda fasirkooduna waa fasir fiican qudaarta waxaa ka mid a qayb haddaad ku riyootid ay khayr kuu tilmaamayaan oo aad noqon doontid tanaad insha allah riyada dhexdeeda qudaartan haddaad ku riyootid waa riyo wanaagsan weeye tusaale haddaan ka soo qaadanno mooska qofka hadduu ku riyoodo moos insha allahu tacaala waxaa kugu soo socda maal oo aad kasban doontid weliba aad ku faa'iidi doontid maalkaa dhinacyo badan buu ka imaan karaa lacag wuu noqon karaa guryo waa noqon karaa beero waa noqon karaa dhul caadiya waa noqon karaa waxaa dhici karta waxaad ku riyootay inaysan noqon qudaar tusaaloo kale waxaad ku riyootay adoo soo iibsanaya sijaayad ama salli taasna waxay tusaysaa insha allahu tacaala inay qaninimo kugu soo socoto weli waxay kaaga imaan doontaa qaninimadaas meel aada ka filayn walidaalika ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi llaha yarsuquhu min xaysu laa yaxtasib sijaayaddaad soo gadanaysid waxay tilmaamaysaa wanaag iyo xoolo inaad heli doontid ama waxaad ku riyootay dhinaca kale dameer taana waxay tusaysaa inaad madax noqon doontid madaxnimadaas aad helaysid dhinacyo badan bay kaaga imaan kartaa madaxnimo dowladeed ama maamul shirkadeed weliba shirkado waaweyn ama ganacsi ahaadeen ama waxyaalo kale ama waxaad ku guulaysan doontaa faa'iide aada u dheer oo u weyn oo ganacsigaada ah marka riyada aad ku riyoonaysa dameer hurdadaada dhexdeeda waxay tilmaamaysaa khayr tiro badan dhinaca kale waxaad ku riyootay ilmo yar oo quruxsan taasna waa riyo wanaagsan oo tilmaamaysa inay xoolo ku soo geli doonaan insha allah dhinaca kale waxaa la mid ah haweeney quruxsan ayaad ku riyootay taasna waa riyo wanaagsan oo nasiib wanaagsan baad heli doontaa insha allahu tacaala walidaalika waxaa la yidhahdaa haweeney wanaagsan ee riyada dhexdeeda lagu arko calaamad waxay u tahay irsaaqad iyo faa'iido dhinaca kale waxaa ku riyootay adoo qacantaada ku haya shimbiro ama shimbir taana waxay tusaysaa inaad xoolo iyo lacag ku guulaysan doontid weliba tartan aad ku gashay oo aad dad kale uga guulaysan doontid laakiin hal mid ayaa hartay kuwa aynu soo sheegnay waa waxyaalo haddaad ku riyootid aad xoolo heli doontid ka warran xoolihii laftirkooda haddaad ku riyootid xoolo tiro badan lacag tiro badan baad ku riyootay oo riyada dhexdeeda ku aragtay taasi maxay ka macno tahay ilaan kuwii hore aynu soo sheegnay qaar qudaar bay ahaayeen qaar xayawaan bay ahaayeen qaar dad bay ahaayeen iyo waxyaalo kale kuwaasoo calaamad u ah ama tusaale u ah inaad qani noqon doontid xoolihii laftirkooda aad ku riyootay lacag badan baa ku riyootay dollar baa ku riyootay tusaale taasi maxay ka macno tahay waxay yidhahdeen dadka fasirka riyooyinka ku xeel dheer taas waxay tusaysaa bay dhaheen khiyaamo iyo tabardarro qofka ku dhacda